mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarumo waxbarasho oo ku yaala qaybo kamid ah deegaanada galmudug iyagoo u kurgalaya sida ay u socotaa waxbarashada deegaanadaas. wariyaheena Baashi Cali Xaashi ayaa warkan galmudug inooga soo diray. kormeerkan ay maantay mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug ay ku tageen iskuulo ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku saabsanaa hubinta dhaqangalka amarkii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku saabsanaa fasaxada goobaha waxbarasho ee dalka si looga fogaado faafidda cudurka COVID-19. maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Waabari Maxamed Sheekh Saciid ayaa faahfaahin ka bixiyay qaadashada go'aankii qaran iyo sidoo kale wadiiqooyinka iminka ay ku bixiyaan waxbarashada. in muddo markii fasax lagu jiray kadib 2 usbuuc ay wasaaradda waxbarashada iyo Soomaaliya iyo galmudugba ay ardada amreen inay fasax la siiyo 2 usbuuc maadaama khatarta COVID-19 ay jirto. usbuucii saddexaad marka filan in dib loo soo laabto dana amar cusub ayaa wasaaradii ka soo baxay heer federaal iyo heer state. marka waxaan ku khasbanaanay inaan go'aankaas aan qaadano oo ardada xilliga fasaxa la siiyay maadaama khatar weyn ay jirto caafimaad in sidaas fasax lagu geliyo haddii ay timid khatar ayagii laftigooda khatar ku caafimaad ahaan in aan fasaxno oo si ay u yaraato dadkii iyo isdhexgalkoodii badnaa ayaan go'aan ku qaadanay. kadib waxaan fiirinay wax kale oo xal noqon kara si ardadii ayagoo fasaxa oo guryahooda jooga ay casharada ku qaadan karaan ayaan ka fakarnay. marka alxamdulillaah hadda waxaan noo suurta gashay oo laga bilaabo sabtigii dhaweeyay laga soo bilaabo aan wadnay usbuucan oo dhan inaan ardada siino casharo online ah. casharadaas oo ardada lagu dirayo gurubyo loo sameeyay Telegram iyo WhatsApp iyo lagu sameeyay macallimiintina ay shaqadii ku jiraan oo ay imaanayaan maalin kasta casharada ay duubahayaan. Sahal Nuure kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee galmudug ee gobolka Mudug ayaa ku amaanay iskuulada qaadashada go'aankii qaranka isagoona fariin u diray waalidiinta Soomaaliyeed. sidaan wada ogsoonahay 3 usbuuc ugu dambeysay dhammaan dalka waxbarashada waxaa ka jirtay gaab la xiriira khatarta caafimaad ee jirta. runtii farxad bay noo tahay in dugsiyadii Gaalkacyo maanta ay la yimaadeen ama ay xal ay waxbarashada ku sii socoto oo ilmihii kaga sii faa'iideystaan aysan noqonin haddii isku imaatinkii caqabadi ka timid in ay jirto habab badan oo